waxaa magaalada Hargeysa ka furmay tababar socon doona muddo 7 maalmood ah oo ay ka qayb galayaan dhalinyaro iskaga kala timi gobolada Soomaaliland gaar ahaan gobolka Badhan, Ceeri Gaabo, Laascaanood, Burco, Boorama, Berbera iyo magaalada Hargeysa. tababarkani oo soo abaabushay xarunta daraasaadka siyaasadda ee CBA ayaa waxa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka xarunta daraasaadka ee CBA oo kulankaasi iyadu soo abaabushay waxaanu sharaxaad ka bixiyay sida dhalinyaradani loo soo xulay iyo tababarada la siin doono nooca ay noqon doonaan. barnaamijkan waxa uu ka mid yahay waxyaabaha aan doonayno inaan maxay toolay iyagana soo kordhinay sanadka ugu talagalay inaan bilowno sanad walba inuu socdo barnaamijka dhiirigelinta dhalinyarta inay maxay toolay maamulayaal wanaagsan ama leaders wanaagsan ay noqdaan. waxaan rajaynayaa inuu sanad la noqdo oo sanad walba maxay toolay aan qabanno dhalinyartuna intan ay ka sii badnaadaan sidoo Ismaaciiliin sheegay halka maanta waxa fadhiya 24 qof oo ka socda 6 gobol ee wadanka gobol walba 4 qof baa ka socda. halkan waxay ku baran doonaan mudane wasiir inta maalmaha halkan la joogo toddobaadka aqoon aad u muhiima ilaa iyo 12 macallin oo experts ayaa halkan maxay toolay training ku siin doona maalin kasta 8 subaxnimo ilaa iyo 4 galabnimo. ruuxaantii intaas oo kaliya focus kala saaray leadershipka waa arrin aan xitaa jaamacadaha lagu dhigan waxa weeyaan jaamacad marka dhigan waxa laga hal course oo leadership aan dhigato laakiin 12 course oo 12 macallin kala gedisan ay ku dhigayaan oo maxay toolay saasoo dhan awood loo saaray aad iyo aad baan anfacaysaa. ruuxaantii waxaan ka boodan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa shirkadda Dahabshiil iyo shirkadda Has Petroleum oo aad iyo aad maxay toolay uga qayb qaatay barnaamijkan. geestooda wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Boss Mire Maxamed iyo gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Sharmaake Axmed Maxamed Geelle oo halkaasi hadalka iska daba qaatay ayaa ka hadlay muhiimadda uu tababarkani u leeyahay dhalinyarada iyo sida loogu baahnaa. aad waxaan ugu mahadnaqaynaa hay'adan garatay inay dhalinyarada goboladan isaga keento tababartana leadershipku waa hogaamintana dadku iyagoo yaryar bay kala leeyihiin oo marka hore bay u kala bisil yihiin. hogaamiyaha waxaa ka reeban waxyaabaha dib u dhaca sameeyo dhan hogaamiyuhu daraags male hogaamiyuhu qabiili maaha hogaamiyuhu corrupted maaha waxa weeyaan qodobo gaar ah oo shakhsiyadda ku saameeyo lagu soo xulan doono baa jira. noloshan caqabado badan baa yaala caqabadahaasina yool baa la doonaya lagaga baxo yoolkaana in yar baa xambaari karta taariikhaha dunida oo dhan ku xusani waa qulqul daad biyo oo socda dhagaxda waaweyn dul yaale biyaha weeciya ayaa la hogaamiyeyaasha in siiskaga socotay iyo nolol sii u socotay iyo wax si caadi loo yaqaanay ayuu hogaamiye soo baxayo dhexdu u fadhiistaa biyaha qulqulka jidka ay u socdeen buu ka bedelaa isagoo isticmaalaya farsamooyin iyo hibooyin iyo kartiyo u gaar oo dadka halka ku dhaafin karo. ugu dambeyn waxaan u idinku boorinayaa inta halkan ku jirtaan inaad barataan waxa wanaagsan ee aad aragto ama waxa qaldan ee aad aragto nidaamka hufan ee loo saxo. aad baan runtii CPA iyo qaban qaabayaasha kulankan uga hambalyeynaya in dad inta leeg oo gobolada kala duwan ka yimid oo runtii dhaqaale iyo dhabar buu baahnaa inaad isku yeedhaan kulamada noocan oo kala umada u badisaan. waa Idris Bershiya, telefishinka Universal, Hargeysa.